qof walba oo xarfiyo barta micnaheedu maaha inuu wax walba yaqaano. qof walba oo akhlaaqdiisu xun tahay hadafkiisa ma gaaro. qof arrimihiisa waxaa ka sheegin. qofkii gala meel xumaan lagu sameynayo waa la eedayaa. qofkii la saaxiibo qof xumaanta caado ka dhigtay ma nabad galo. qofkan carabkiisa xugmin wuu shalayaa wax badan. dadka waxaa ugu wanaagsan midka hadalka yar. quruxdu ma aha inaad leedahay weji qurxoon, laakiin waa inaad leedahay qalbi qurxoon iyo caqli qurxoon. wax walba way dhammaanayaan marka laga reebo khayrka iyo wanaagga aad qabato. dadka qaar way la yaab badan yihiin qofka wanaagsan, way jecel yihiin laakiin xaqiisa ma siiyaan. qofka xun way necab yihiin laakiin way xisaabsadaan. qof walba oo dadka iska weynaysiiya wuu dulloobaa. qof walba oo aan dadka la tashan wuu shallayaa. qof walba oo culimada la fadhiista wuxuu bartaa. qof walba oo aamusnaantiisa badata wuu nabad galaa. haddaad rabto inaad noolaato adigoo faraxsan, wax walba ha xalaashan, wax walba ha fasirin, wax walba iska jaahilsii. ha u murugoon shay kaa tegay, sababtoo ah wuxuu kuu soo laaban doonaa asagoo weji cusub leh. qofkii raadiya saaxiib aan ceeb lahayn wuxuu noolaadaa asagoo keligiisa. qofkii raadiya xaas aan ceeb lahayn wuxuu noolaadaa asagoo doob ah. qofkii raadiya jecel aan mushkilad lahayn wuxuu noolaadaa asagoo raadin ku jira. qofkii raadiya qaraabo dhammaystiran wuxuu noolaadaa qaraabo la'aan. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkeena. waxaan rajaynayaa wax badan inay kaaga baxeen muddada aad daawanaysay. fadlan subscribe saar barteena youtube-ka SYC Media. mahadsanid tan iyo kulanti dambe. wassalaamu calaykum.